boqorka dalka Marooka ayaa tacsi u diray waalidiinta wiilka dhintay kadib markii uu ceel ku dhacay maalintii Talaadada ahayd iyadoo tan iyo maalinta la waday dadaalo lagu soo badbaadinayay. hase yeeshee Rayaan ayaa ugu dambeyntii xalay laga soo saaray ceelka 30 mitir ah kadib markii ay sameeyeen gurmad balaaran oo soo jiitay indhaha caalamka. marka laga soo saaray ceelka waxaa goobta ka qaaday ambalaas balse geeridiisa ayaa la xaqiijiyay wax yar kadib markii goobta laga qaaday. bayaan ka soo baxay boqortooyada ayaa lagu shaaciyay geerida wiilka yar wax yar kadib markii laga soo saaray ceelka kadib dadaal muddo dheer qaatay oo la doonayay in lagu soo samata bixiyo. boqor Maxamedka lixaad ee ah boqorka dalkaasi Marooka ayaa u tacsiyadeeyay waalidiinta dhalay Rayaan. isku dayii lagu doonayay in wiilka godka looga soo saaro ayaa waxa uu soo jiitay indhaha dadka dalkaasi Marooka iyadoo boqolaal qof isugu soo aruureen ceelka halka kumanaan kun kalena ay dhacdada kala socdeen dhanka online-ka. wiilkan ayaa waxa uu ku dhacay ceel hoos u qodan 32 mitir wuxuuna kaga dhacay duleel yar oo biyaha laga soo saari jiray. howlwadeennada gurmadka degdega ayaa muddaba ku mashquulsanaa sidii ay wiilka nolol ugu soo bixin lahaayeen. hase yeeshee waxaa dadaaladii ay wadeen curyaamiyey cabsi laga qabay inuu dhulka go'o. muuqaal khamiistii laga soo duubay kaamara hoos loo dhaadhiciyay ceelka ayaa muujinaysay wiilka oo nool dareenkiisana uu joogo. hase yeeshee wixii markaa ka dambeeyay ma jirin xog kale oo dheeraada oo ku saabsan xaaladiisa. waxaa aad looga walwalsanaa sidii uu u helayo neefta oksijiinta ilaa inta laga soo bixinayo. saacadihii la soo dhaafay waxaa laga dharsugayay kooxda badbaadinta oo godka galay isla markaana wiilka u soo saaray dibadda. qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa godka la galay kooxda badbaadinta si ay ula tacaalaan haddii uu halis caafimaad ku sugan yahay. waxaa la soo tabiyay in wiilka yar uusan wax cunin waxna cabin muddo 5 maalmood ah. sidoo kale khubarada caafimaadka ayaa ka walwalsanaa in maadaama ceelka uu ku dhacay uu aad u dheer yahay ay dhaawacyo gaareen. heerkulka gobolka ayaa gaaraya heer aad u sareeya oo noqon kara 40 digrii ilaa iyo 50 digrii taasoo dhibaato weyn ku noqotay qofka godka ku jira. ceelkan ayaa u samaysan god aad u dhuuban oo qof caadi ah uusan geli karin wuxuuna ka duwan yahay qaabka loo qodo ceelasha Soomaalida ah. dhulka oo buuraley ah ayaa adkeeyay shaqada gurmadka oo in muddo ah qaadatay.